daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka Gurmud Media waxaana ka mid ah General Oduwa oo amray in la soo qabto sarkaal ciidan la goostay iyo xiisad dagaal oo ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamada danab iyo kuwa Mareykan ah oo dilay in ka badan 20 shabaab ah. Qeyro dalab xasaasi ah oo hordhigay hoggaanka Ahlus Sunna. Maxay Al-Shabaab cadow weyn ugu aragtaa dowladda Turkiga? Xog ayaan idinkaga hayaa arrintaasi. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasto aan channelkan soo gelino. Taariikhda waxa ay tahay 1 bisha koowaad sanadka cusub 2020 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal. General Oduwa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay sida la sheegay in la soo qabto sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo la sheegay inuu ciidan la goostay kadib markii uu sheegay in cadaalad darro ay ku dhaqaaqeen taliska militariga Soomaaliya. Taliyaha Oduwa Yusuf Raage ayaa ciidanka gorgore sida qaaska u tababaran gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabelle u geeyay soo qabashada Cornel Masdili oo ka tirsan guutada 1 Abriil sidoo kalena ka tirsanaa madaxda ciidankii lagu weeraray deegaanka Ceel Saniini ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha degmada Raage Ceele Cumar Nuur Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Oduwa uu soo wacay una sheegay inuu soo dhiibo Cornel Masdili. Wuu soo wacay sarreeya guutooda wuxuuna igu yiri soo bixi sargaalka baxsadka ah ee tuuga ah ee aad ku hayso degmada Raage Ceele. Cornel Masdili ayaa isaga iyo ciidan uu hogaaminayo oo ku heeb ah waxay muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaayeen degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxayna hadda fadhiisin ka sameysteen degmada Raage Ceele ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ah deegaan uu ka soo jeedo. Abaabul dagaal iyo xaalad cabsi ayaa laga dareemayaa degmada Raage Ceele sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka. Gudoomiyaha degmada Raage Ceele Cumar Cali Nuur ayaa sheegay in aysan jirin warar sheegaya in degmada ay ku soo wajahan yihiin Al-Shabaab balse la doonayo in dowladdu ay warar ku soo qaado. Dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidanka gorgor ay degmada ku dileen 2 habeen ka hor ciidan madani ah oo degmada hoostaga hubkiina ay ka qaateen ilaa ay haatan aysan jirin cid wax iska weydiisay isagoo baaq u diray mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee taliska militariga dalka. waxaan isku daynay si aan ula xiriirno General Oduwa taliyaha ciidanka xoogga si aan wax uga weydiino arrinta ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe noomana suurtagelin. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaan xabsiga dhigtay saraakiishii hogaaminaysay ciidankii shabaab ay ku xasuuqeen gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceel Saniini oo saldhig militari u ahaa. taliyihii guutada amaandiiluhu guutada iyo dhammaan taliye ururyaashii ayaa dowladda Soomaaliya waxay dhigtay xabsiga dhexe Muqdisho. sargaalkan kaliya ayaana ka baxsaday isaga iyo ciidan fara badan oo wato ku heeb ah. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koobaad ayaa mar uu ka hadlayay xiradan la weeraray waxa uu sheegay inay baaritaan ku sameynayaan sida ay ku dhacday in shabaab ay laayaan ciidan tiro badan hubkii dowladana barqacda ay qaataan. wuxuuna sheegay in saldhig walba oo la weeraro oo ay shabaab ay qaataan hub loo heesta arrintaasi saraakiisha xukumaysa saldhigyada la weeraray. lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalka ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe. dowladda Soomaaliya maamulka Hirshabelle weli arrintan kama hadal. markaana Galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dalab xasaasi ah hordhigay hoggaanka Ahlus Sunna. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa weli kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. kulamadan uu ra'iisul wasaaraha la qaatay hoggaanka Ahlus Sunna ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashada Galmudug oo mar kale fashil ku yimid jadwalkeedii. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay hooygiisa kula kulmay hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyagoo ka wada hadlay khilaafka ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug. wararka ayaa sheegay in Kheyre Macalin Maxamuud ka dalbaday inay Ahlus Sunna dib u dhigto 20 xildhibaan la siiyay isla markaana marka hore odayaasha dhaqanka fursad loo siiyo inay soo xulaan 69 xildhibaan ee kale iyadoo beel kasta iska reebaysa 2 kursi markaas kadibna ay Ahlus Sunna soo xulato 20keeda xubnood. arrintan ayaa waxa ka biyo diidan Ahlus Sunna oo hore u shaacisay liiska xildhibaanada balse waxa lagu ballamay kulamo kale oo maanta qabsoomaya. shalay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa Dhuusamareeb kula kulmay madaxa xukuumadda Galmudug kana mid ah hoggaanka sare ee Ahlus Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo uu kula hadlay dib u dhigista xildhibaanada Ahlus Sunna iyo arrimo kale. xaaladda ayaa u muuqatay in si cakirmiso waxaana tabashadan ay ka dhalatay markii beelaha qaar ay ka hor yimaadeen 20 xildhibaan ee Ahlus Sunna
sidoo kale doorashada ayaa mar kale waxaa ku yimid dib u dhac kadib khilaaf hareeyey hanaanka ay ku socoto doorashadaasi. lama oga halkuu ku dambeyn doono xaalkan, balse dowladda dhexe federaalka ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuulaysa sidii ay xubno badan oo siyaasadda taageersan ugu yeelan lahayd baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. markaana gobolka Shabeellada Hoose, wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose daawadayaal ayaa sheegayay in saacadihii la soo dhaafay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa sida qaaska u tababaran ee danab ay howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. howlgallada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxay ciidamadu kula wareegeen deegaan cusub ay ku sugnaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab oo dhib fara badan ku haya shacabka halkaasi ku nool. taliyaha guutada 16aad ee danab Cismaan Cabdimaalig Maalin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dileen ugu yaraan 20 ka tirsanaa Al-Shabaab. sidoo kale waxa uu tilmaamay taliyahan inay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyinka kala ah Muuradinle, Buula Maskiin, Macalinka, Beledulaamin, Raqayle, Sabriye iyo Buula Bashiir. ugu dambeyn taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in howlgallada ay sii socon doonaan inta Al-Shabaab laga saarayo gobolkaasi. xaaladda ayaa maanta ah mid degan, mana jiro weli wax hadal oo ka soo baxay dhinaca dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu ku aadan howlgalladaasi. maalmihii ugu dambeeyey ciidanka huwanta ah ayaa xoojiyey howlgallada ka socda koonfurta Soomaaliya tan iyo markii uu dhacay weerarkii dadka badan ay ku dhamaadeen sabtidii aan soo dhaafnay X-Control Afgooye ee duleedka Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa waxay kordhisay shabaabka weerarada ay ku qaadayso. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa deegaano ka mid ah gobolada Shabeellada Hoose iyo Bay waxay dhawaan ka saartay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa aad ugu xoogan koonfurta Soomaaliya marka loo eego gobolada kale ee dalka Soomaaliya. maxay dagaalamayaasha Al-Shabaab cadowga ugu weyn u arkaan dowladda Turkiga? Turkiga wuxuu ku guuleystay inuu dhiso ciidamo Soomaali ah oo dagaalo ba'an la galay Al-Shabaab, gaar ahaan howlgalladii ka dhacay Shabeellada Hoose. sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga. Al-Shabaab ayaa si lama filaan ah maalmo kadib u sheegtay mas'uuliyadda qarxii dadka badani ay ku dhamaadeen sabtidii toddobaadkan ka dhacay isgoyskii X-Control Afgooye duleedka magaalada Muqdisho. qarxii hore uga dhacay Muqdisho khasaare badan sababay ayay Shabaab sheegan. sidoo kale waa markii ugu horeysay Shabaab ka dhawaajiyaan in markaan bartilmaameedkoodu uu ahaa dowladda Turkiga. afhayeen waa hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaas lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen dad u dhashay Turkiga oo xulafo la ah dowladda Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in dadkii ku dhintay weerarkaas ay ka mid ahaayeen 2 muwaadin oo u dhashay dalkaasi. haddaba Al-Shabaab maxay u beegsanaysaa Turkiga? 9kii sane ee u dambeysay dowladda Turkiga waxay galaan kaltoosa ku lahayd Soomaaliya, waxayna dowladihii isxigay la wadaagaysay xiriir iskaashi mid dhaqaale iyo mid dhinaca taageerada ah. horey Al-Shabaab waxay u sheegatay inay la dagaalamayso dalalka shisheeye ku sugan Soomaaliya, hase ahaatee waxaa la sheegayaa inay tahay markii ugu horeysay oo ay ku dhawaaqaan cadaawadda ay u qabaan Turkiga. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga ayaa BBC-da uga warramay waxyaabaha sababta noqon kara in Shabaab ay weerar la beegsato muwaadiniinta Turkiga. waxa uu sheegay in sababaha ugu weyn ay ka mid tahay Turkiga oo xoojiyey xuduudda militari ee ciidamada dowladda federaalka, kuwaasoo dagaalo kula jira xoogagga Al-Shabaab. marka laga soo tago dhinaca ciidamada Turkiga wuxuu dhisay wadooyinka waaweyn, garoonka diyaaradaha iyo dekedda. taasina ma aha mid Al-Shabaab raalli ka tahay, ayuu yiri Cabdiraxmaan. dhinaca kale waxa uu sheegay in Ankara ay ku guuleysanayso taageeridda Soomaaliya. Turkiga waxa uu noqday dowlad xiriir adag la leh dowladda Soomaaliya oo u muuqata mid soo kabanaysa maalinba maalinta ka dambeysa, halka Al-Shabaab ay istiraatiijiyadu tahay inay burburiso dowladda oo ay ku horjoogsato in wadooyinka la dhiso. waxayna doonayaan in Turkiga aysan xoojin dowladda Soomaaliya sababtoo ah sanadihii u dambeeyay waxaa muuqata in Turkiga uu kaalin cad ku leeyahay Soomaaliya, uuna kasbaday quluubta iyo caqliga shacabka Soomaalida, waana midda keenaysa in Shabaab ay ka hortagaan, ayuu yiri arrintaa. Turkiga ayaa in muddo ah howlgallo kala duwan ka waday Soomaaliya, halkaasuu ka hirgeliyay xarumo caafimaad iyo mashaariic kale. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa bishii Juun ee sanadkii 2016 soo gaaray Muqdisho, wuxuuna markii ugu horeysay xariga ka jaray safaaradda Turkiga Soomaaliya. Turkiga ayaa saldhig militari ku leh Soomaaliya, kaasoo tababaro iyo taageero kalaba siiya ciidamada dowladda Soomaaliya. saldhiggan oo xariga laga jaray sanadkii 2017 ayaa noqday xarunta tababar ee ugu weyn adduunka ee Turkigu ka hirgeliyay meel ka baxsan gudaha dalkiisa. dowladda Turkiga waxay sheegtay in saldhiggan halkii bar lagu tababari kara in ka badan 1500 oo ah
ciidamada dowladda Soomaaliya. Ujeedada saldhigani ayaa la sheegay inay tahay sidii loo xoojin lahaa ciidamada militariga Soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada shabaab. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines ayaa sanadkii 2012 noqotay diyaaradii ugu horeysay ee duulimaadyo caalami ah ka bilowda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho tan iyo burburkii dowladii dhexe ee 1991. daawadayaal waa naga inta warkad kala socoteen Gurmud Media haddii aad nagu cusubtahay fadlan daawada subscribe